guddida waxaan ku ammaanayaa xaajada ceelaf weyne badan bay ku jireenoo hadday maanta yiraahdeen masaajidkaan geyno oo masaajidkaan la tagno wal si loo cabsoodo horta guddida aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa anaguna mahadnaqno ilaahayna ha inaga aqbalo ilaahay baa wax bixiya si kastoo dadaasho haddaan ilaahay aqbalin waxba ma suurtagalaane aan ilaahay barino si niyana aanu barino ilaahay waa inaga aqbalaya waxaan u soconaana waa maslaxad guddida waxaan leeyahay haddaa in hore aad soo gasheen haddii go'aamo aad soo saarteen la fulin waayey hadda diyaar baanu idiin nahay wax kastood soo saartaan ha qadhaadhaado wuxuu doona ha ahaado waa fulinaynaa dowlad ahaan haddii aan la idhaaho guddida taasaan leeyahay niyad sami ku shaqeeya kalsooni ku shaqeeya idinkaanu idinla shaqeyn idinlama shaqeynane idinka amarka haya midna waa idin xasuusinaya labada arrimood ee qaramaynta iyo nabadaynta ceelaf weyn iskuma xidhna qaramayntu waa gooni waxaanu ka soo bilownay ceerigaabo waa wadana nabadana guddidaasaa u xilsaaran cidina yeena isku xidhanayno odhanin reer ceelaf weyn baan u jeednaa ha isku xidhina wax isku xidhani ma jirto qaramayntu waa gaar taasina sideeda ha loo qaato walaalayaal labada reer waxaan leeyahay waxaanu idinla joognaa ee bisha ramadaan aanu idinla joognaa war waa dareen waa damqasho waa dadnimadiina inay soo noqoto danta somalilandna ay ku xidhan tahay waayo hadday fartu ku bugto jidhkaaguma seexan karo war ceelaf weyn somaliland bay ka mid tahay meel weyn bay kaga jirtaa haddii ay bugto somaliland baa bugta ku talagala damqashaanu idinku nimidnay dareen baana wada islaamnimaana wada alla ka cabsi baana wada xaq baad nagu leedihiin in la idin dhex galo xaq baad noogu leedihiin intiina halkaa joogto in badan imiga intaan joogaan isbarannay marka boqor cusmaan laga bilaabo boqor axmed lagu daro intiina kale war maydaan kari waayin maydaan kasi waayin laakiin waa isku muuqateen iska ilaawa wixii tegayna ilaawa meel cusub ka bilaaba intii dhimata may soo noqon mayso intii waxyeel la gaadhay soo noqon mayso war inta dambe ha la badbaadiyo taariikh ka taga ilmaha dhalan doona iyo kuwa yaryari taariikh uga taga ha kala degina wada dega ceelaf weyn ha kala soconina wada socda ha isxamanina isku xariira ha kala faqina wada faqa dadkii la tilmaamaya walaalaha ahaa noqda waanu idiin ducaynaynaa annagana ilaahay ha nagu asturo waxaanu nimidna inta badan aniga rag badan oo halkan fadhiya bisha Ramadaan 10 dambe dan adduunyo maanaan geli jirin laakiin waxaanu u galay maanta war waa dartiina iyo wanaagiina ilaahay haydu tusa annagana ha nagu guuleeyo waa masaajid waxaan joognaa waa masaajid halkaan joognaa nin gaari doona bisheeda iyo bari toolan war ma hayno war iscafiya horta labadiina reer iscafiya guddidaana aamina waxay ku taliso annaguna waan fulinaynaa waxaan ku tala gashaan wixii horumar aan ugu tala galay reer ceelaf weyn waanu ognahay halkii ay markay noo dhiibeen waxaad noo dhiibteen waa xil nina wuu ku farxay wuxuu yidhaa wallahi xilkooda wuu shar qaada war waa xil haddii lagu dhiibo aakhiradaadii baa lagu weydiinayaa waxaad yeelayso boqor wax fiican maydaan dhiibin waxaan dhamac baad noo dhiibteen dee reer ceelaf haddaan doorateen tii baan u joognaa inaanu ana fuuf naga dhaha waa dhamac weeyaan xilku ma fududa boqorradiina iyo jiif caaqilada iyaguna waxaad sidaan taasoo kale aad haysaan haddaa ismoodaysaan inaad wax fiican aad haysaan dhamac baad haysaane war ka fogaada cadaabta nin walba maalinta godka la geeyo u garanaya intii ku dhimatay haddii maanta qaar la soo celin lahaa wallaahi waa ogtii waxay idiin sheegi lahaayeen waxay maanta idiin sheegi lahaayeen waa garanaysaan ilaahay aan ka baqno dantiina iyo danta iyo somaliland baan u joognaay aan isku kaashanno guddidaana aan ku kalsoonaano idinkuna iscafiya isku kalsoonaada waa naga dardaaran aad iyo aad baan u rajaynayaa in wixii aan iskugu nimidnay maanta ee halkaa masaajidkaan iskugu nimidnay ee islaaxa in ilaahay inoo aqbalo ilaahay haynaga aqbalo ilaahay haynaga aqbalo guddidaana allaha waafajiyo khayra idinka dhammaantiin shirkiina nabadayntuna waa inoo furan yahay
ilaahay wax khayr qaban ha inooga dhigo